بعد السلام maantay waa maalin weyn taariikhdu waa 25 bishii 2022 dowladnimo dadka deeqda in ciidanka booliska heer state iyo heer degmo halkan loogu dhigo xaflad xil wareejin ah caasimadii maamul goboleedka Galmudug aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay waxaan marka hore u mahad celinaynaa dhammaan saraakiishii soo shaqeynaysay oo ugu horeeyay generaalka hortayda fadhiya generaalka qaybta haddana u diyaarsan inuu xilka wareejiyo asaga iyo ku-xigeenadiisu taliyihii saldhiggii booliska Dhuusamareeb taliya Cabdullaahi waxaan ku ammaanaynaa dhammaantood amnigii ay soo sugeen oo horumarkan iyo higsigan lagu gaaray waxaan leenahay waa mahadsantihiin bulshadiina aad u shaqayseen una shaqay doontaan haddii ilaahay idmo waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan saraakiisha la soo magacaabay oo ugu horeeyo taliyaha qaybta booliska Galmudug iyo ku-xigeenkiisa degmooyinka lala soo magacaabay si gaar ah waxaan u soo dhaweynayaa taliyaha saldhigga booliska Dhuusamareeb mudane Burhaan Axmed Rooble dhammaantiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo taliyaheenii hore General Cabdicasiis iyo ku-xigeenkiisii General Xabeeb oo runtii aan waqti badan soo wada shaqeynay aan filaayo inay si qurux badan maanta meeshaan ugu wareejin doonaan xilka taliyaha cusub ahna macalinkaygii General gaashaanle sare Cabdikariin Macali Xuseen aad iyo aad aan taliya ugu faraxsanahay dhammaan in meeshaan maanta xilka lagu kala wareego saldhigyada iyo taliyaasha qaybaha guud iyo ku-xigeenadoodaba waxaan leeyahay soo dhawaada ragga xilka la wareegaya waxaan rabaa inaan meeshaan idhaahdo soo dhawaada la wareega shaqadiina sidii loogu talagalay uga soo baxa meeshii kuwii hore ay gaarsiiyeenna hore uga sii wada waadi soo dhaweynaynaa runtii dhammaantiin saldhigyadii aan gacanta ku haynay iyo ciidamadii aan haynay iyo meeshaan wax gaarsiinay inaad nagala wareegtaan horena u sii wadaan ayagoo saasaan haddana waxaan rabaa inaan laftigayguna dee ayagan ka mid ah kuwa haddana wax la wareegayo meeshii la ii dhiibay meesha ay marayso inaan hore uga sii kiciyo hore u sii wado aad iyo aad ay u dhib badan tahay qof walbana kama shaqayn karo qof mariya ku dhaga kama shaqayn karo meel aad xasilisay oo wanaajisay oo aad markaad islahayd suudka aad markaan u qaadatid oo mukayfka aad dhex gashid aanta lagu soo boohda waxa lagu leeyahay waxa laga tuurayaa baydhabo marka waxaan leeyahay ciidamo raggii soo shaqeeyay saraakiishii oo waliba taliya Cabdullaahi oo soo maray marxalada aad u adag badan aad u adag oo meelo kala duwan qaylo uga soo yeeriso inta nin dhalinyaro ah oo aad iyo aad u dulqaad badan oo ahaa shaqo wanaagsan la ka qabtay degmadan Dhuusamareeb waxaan leeyahay taliya meesha aad tagtaa meel qayr qabta ha ahaato taliyaha cusubna waxaan leenahay in taliyihii hore wanaagii iyo lagu yaqiinay mid ka wanaagsan inaan la timaadaan rajaynaynaa askarta taliyaha caasimadda Nisa Qooje dhammaan saraakiisha kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu bacda salaam waxaan rabaa runtii maanta waa maalin qiimo leh waa maalin runtii dee ka duwan maalmaha kale special aniga iga duwan waxaan rabaa inaan saaxiibkeena ku soo dhaweeyo anigana laga soo watiyo insha Allah hadii Ilaahay idmo waa mahadsantihiin dhammaan saraakiisha ka soo qayb gashay oo ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya mahad celin kadib waxaan rabaa halkaan inaan u mahad celiyo bulshadii reer caasimadda Dhuusamareeb oo runtii nala soo shaqeysay oo marxalad adag oo muxuu ahaa runtii aad u adkeed nala soo martay ugu horeeyo duqa caasimadda waxaan rabaa inaan si gooni ah u mahad celiyo marxaladii ay nala soo mareen iyo runtii sidii noo taageereen oo garab istaageen intaan shaqeynaynay waxaan rabaa si gooni ah ugu mahad celiyo oo ugu mahad celiyo saraakiisha horteeda waa mahadsantihiin bulshada caasimadda waxaan rabaa inaan ii sheego taliye iyo taliyaal meeshaan caasimadda waxaan ka sameynay nabadeyn oo muxuu ahaa in runtii shaqo nabad ah oo muxuu ahaa amni nabad ah laga qabto waa lagu guuleystay alxamdulillah waxaan rabaa runtii inaan aan ku ammaano ciidankii iyo saraakiishii shaqeynaysay qof kaliya wax ma qaban karo
anigu waxaan qabanaya waxay ahaayeen waxaa ila qabanayay saraakiisha dhammaan marka waxaan rabaa inaan si gooni iyagana u mahad celiyo shaqadii adkeeda kasoo qabteen caasimadda oo ku saabsaneed qaabka nabadeynta iyo in muxuu ahaa si nabada loo falgalo oo loo howlgalo qodobka kale aan rabaa inaan sheego waxa waaye xalinta khilaafaadka bulshada oo hadduu ahaa lahaa dhul iyo haddii ahaa lahayd diyooyin iyo haddii ahaa lahayd marxalad kasta oo subaxii waa ka duwan yahay meelaha businesska ama meelaha subaxii loo shaqo tago saldhigu waa ka duwan yahay weli waa ka dad badan yahay subaxii waxaa laga yaabaa in 200-300 qof kusoo shaqo tagto oo ay qof walba qofka kale uu haysto marxaladan laga rabaa inaad maaraysid marka waxaan rabaa inaan runtii qodobkaasna waa ku guuleysanay taliye waxaana sameynay muxuu ahaa in aan xalino khilaafaadkaas dholalka ku saabsan ama muxuu ahaa diyooyinka ku saabsan inaan xalino qodobka kale muhiimka ah oo rabo inaan inta ka sheego waxaa kamid ah deegaanada ayagana barbalamiyaha ka jira sidaas oo kale ku saabsan dhul daageemeedka muxuu ahaa degaayo iyagana la isku qabsado runtii ayagana waxaan ka qabanay inaan arrintaas xalino alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan rabaa doorashooyinkii inaan soo dego taliya doorashooyinkii waa adkaa waad nala joogtay qayb badan oo runtii kamid a waa ku guuleysan alxamdulilah rabbil caalamiin si nabad ah anagoo kaashanayna hay-adaha amniga oo ugu horeeyo ciidanka nabad sugidda saaxiibkay qooje yaan ku guuleysanay inaan si amniga ku sugno oo halkan ciidanka fadhiya wujuudooda ujeedaan ay kasoo shaqeeyeen runtii taliya 8 bilood ku dhawaad inay laamiga taagnaayeen iyo saraakiisheenii ugu horeeyay saraayaasha ugu horeeya oo runtii muxuu ahaa nugu ayagana nagu garab taagnaa marxalad adag oo la soo maray ahayd alxamdulilah rabbil caalamiin si nabad ayaan uga soo gudubnay taliya waxaan kaloo ku guuleysanay inay si ciidanku isku mid ah u howlgalaan haddii ahaa lahaayeen bolis iyo haddii ahaa lahaayeen nabad sugid iyo haddii ahaa lahaayeen military isku xirka ciidamada kaalinaan ka qaadana ayadana runtii annaga kaalinteenii iyo ka bolis ahaan anagu waa buuxinay anagu nagu horeeya sareeyaashu kaalintaasna waa buuxinay runtii waan ku guuleysanay inaan ciidankii muxuu ahaa si isku mid ah ay u howlgalaan oo ay sameeyaan si isku mid ah u shaqeeyaan waxaan rabaa taliya soo celinta xiriirka bulshada iyo booliiska runtii waa ku guuleysanay ayadana ayadoo nagoo kaashanayna bulshada iyo booliisku waxaan ka dhignay mid taasna waxay sababtay inay wixii dhacay oo wanaag ahaa ilaahay noo qadaro oo noo dhacaan bulshada nagoo kaashanayna runtii waxay ahayd muxuu ahaa inaan bulshadii kaashano oo si isku mid ah u adeegno oo riboodka ay keenaan oo wax ka qof kasta oo degan caasimadda ama deegaanada ku xeeran wax kasta oo dhiba markay arkaan ay noo soo sheegaan mudane taliye waxaan kaloo kuu sheegayaa ciidanka booliiska waxaan gaarsiinay degmootu caasimadda muxuu ahaa deegaanada hoostaga sida maroguriya godoon iyo ceel dheer oo kale waxaa ka shaqeeya booliis dadka shacabkan u shaqeeya si isku midana u howlgala wixii ku adkaadana usoo gudbiya saldhigga caasimadda iyagoo muxuu ahaa kaashanaya saraakiishooda sarsare iyo saraakiisha ka shaqeysa intaba waxaan rabaa iyagana u mahad celiyo runtii aad ay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo taliye dardaaran aan la dardaarmayo ciidanka iyo muxuu ahaa saraakiishii ila shaqeynaysay sida sharafta leh oo quruxda badan ila shaqeysay waxaan rabaa inaan dhaho waa mahadsantihiin saraakiisha iyo askarta sharafta leh sidii sharafta laheed oo ila shaqeydeen oo qiimaha iyo wanaagga iyo qaayaha ay ku jireen iyo kala amar qaadashada waxaan rabaa inaan ula shaqeysaan saraakiisha cusub oo la keenay ood garab istaagtaan oo amnigu sidii uu ahaa iyo si lagu sii daro oo sii ahaado adinkoo aad u mahadsan waxaan rabaa inaan saraakiisha cusubna kula dardaarmo saraakiishana sharafta leh markaad imaataan meeshii shaqadu ay joogtay inaad kasii wadaan bulshadana usii adeegtaan oo ay noqoto muxuu ahaa qor isu dhiibkaas dowladnimada sidaas ay kusii wanaag badanto insha allah waan idinka rajeynaa haddii ilahay idmo ciidanka qalabka sida ciidamada qalabka sida ee booliiska soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee kasoo qayb gala xafladda ay ka muuqdaan saaxiibadayda sida qooje oo ah saraakiisha nabad sugidda iyo maxamed shidane iyo rag la mida marti sharaf kale wariyayaasha dhammaan waxaan leeyahay hambalyo waan soo dhaweynayaa saaxiibkay sida sharafta loo qiimaha badan oo uu u sharaxay shaqadiisa iguna yeeray inuu igu wareejiyo shaqadii waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala meeshii ou geeyay inaan kasii wadi doono waxaan rabaa inaan ka codsado shacabka caasimadda iyo deegaanada la xiriira
shaqada naloo igmaday inay nagula shaqeeyaan haddii alla yidhaahdo annagoo noqon doona nabadoonada sida booliiskaba uu yahay deegaanka sharcigana taabogeli doona iyo dowladnimada haddii ilaah yidhaahdo waxaan diyaar u nahay ciddii dhib wadana inaan ka qabanno ummadda dadka wanaagsanna inaan la tashanno si aan shaqo wacan u wada qabanno haddii alla yidhaahdo intaas kadib waxaan rabaa saaxiibkay cabdulaahi taliyihii hore ee caasimadda inaan mahadcelin gaara u sameeyo awal annagoo aan saaxiibo hore u ahayn saaxiibtinimadayna hore ka sokana shaqada hadda aan ku kala wareegayno taliya cabdulaahi waa mahadsan tahay waana kaa guddoomay mudana taliye waxaa maanta sharafii ah inaan taaganahay marxalad aan ku faani karo oo maanta muxuu ahay aan ku wareejin karno saaxiibadayada cusub ee jawi nabadeed ah ee maanta halka kan aan soo gaarsiinay inaan ku faani karo maanta farxad bay ii tahay farxadda labaad waxaa ii ah in maanta jawi nabadeed ee caasimadda tani aan soo gaarsiinay ee aan diidnay in dagaal ka dhaco in badan ee aan diidnay in iska horanaad ka yimaado ee aan ku soo siinay saaxiibadayada cusubna farxad bay ii tahay waxaan rabaa si qaas ah inaan ugu mahadceliyo taliyaha cusub ee saaxiibkay cabdikariim iyo taliyihiisa ku-xigeenkiisa maxamed nuur oo labadaba runtii aan saaxiibanahay in badanna aan soo wada shaqaynay maanta waa ku faraxsanahay inaan halkan aan xilka ugu wareejino waa ku faraxsanahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii taliya qaybyada taliyayaasha saldhigyada guddoomiyaasha degmada bulshaweynta reer galmudug ee caasimadda ciidanka galmudug ee boliiska dhammaan sidii sharafta badnayd jawigaan maanta u soo gaarsiisay hawshaan ee sida sharaftana noola shaqaynaysay ee aan madaxda u ahayn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo runtii saraakiisha ee muxuu ahayey hadda halka fadhida ee howlaha gaarka seembar u taagnaa iyo amniga oo ay ugu dambeeyeen kuwa hadda ka yimid meel la yidhahdo shabeel carab oo dadka shacabka kale dhex taagnaa ay ka dhasheen ayagana inaan si gaara ugu mahadceliyo oo uu ka mid yahay cabdi kadowo iyo cali dheere iyo ragaalkan fadhiya inaan u mahadceliyo waxaan ku sheegayaa taliye iyo taliyayaalba waxaan ku dhex jirnay arrin nabadayn waxaan ku dhex jirnay arrin muxuu ahay xasaasi ah waxaan ku dhex jirnay arrin duruufo adag ah ilaahay waxaan uga shukriyeynaa dhammaan intaas waxaan ku soo moodnay si sharaf lahaan ku soo moodnay ee nabadgelyo iyo xushmad boowan ilaah baa mahadda iskale waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo labadeeda saaxiib xilka maanta ku wareegaysa waxaan u ballan qaadayaa waxaa la yidhi in xallay maxmadasha ma tago waxa carrada maraysa xabiib wuxuu ka xanaaqsan yahay xilka laga qaaday been waaye been weeye kama xanaaqsani waa ku soo dhowaynayaa waa saaxiibaday run markaan sheegan cabdikariim in badan baan riixayay asna waa ogyahay taliyaha hadda ag fadhiya ee taliyaha biliiska ku-xigeenka soomaaliyeed in badan baan ribood ugu tegey in cabdikariim halkaan la keeno cabdikariim markii halkaan la keenayana inaanu anigu markaas cabdikariim ana ka hoosaynayn waan ogaayo waan malaynaya in aniga lay bedelayo laakiin inuu meeshaan wax ka dhigo ayaa ujeedkaygu ahaa ujeedkaygu taasuu ahaa cabdikariim waxaan kuu ballan qaadayaa adiga maxamed nuurba ilamaa inta xilkaan aad ka wareegaysaan haddaan idinla joogo inaan idin garab taaganahay waxaa laygu xantaa waa oday soo jireen oo waddanka aad u yaqaana oo deegaankan in badan ka soo shaqaynayay mudug iyo galgaduudba dhammaan intaa waa ka soo shaqeeyey dadka shacabkaana aad baan isku naqaanaa intii aan idin dheerahay iyo intii ila midaba waa idinku kaalmaynayaa waan idinla shaqaynayaa intaa kadib waxaan rabaa dhammaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba bulshada reer galmudug ee caasimadan degan ee nabadaa nala soo hagaajinaysay ee nala daadihinaysay oo ugu horeeya guddoomiyaha caasimadda iyo ku-xigeenkiisa oo hadda ididkayga fadhiya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa in badan baan wada hadalnay in badan baan shirnay waxaan intaas aan xeelinaynay inaan meeshaan dagaal ka dhicin inaan dhibaata ka dhicin
waxaa la yidhi reernimada ma loo talin waayo, reernimada looma talin waayo, laakiin meel khasaare ka dhacay lagama talin karo. maanta waxaan joognaa meel laga talin karo oo ninkii shaqaynaya ka shaqayn karo. marxaladahan soo maray xoogaal baad ka tihiin, wax badan baad og tihiin. ayagoo muddo hore yaar isdaba socdaan oo laba muddo hore isdaba socoto, midna diiday midna yeelay ku jirto, ayaan waxaan gaaray labadaba inaan qancinno oo jawi nabadeed ku qancinno oo aan ku soo celinno inay wadda caasimadda tan aan dhibaata ka dhicin. kollayna basi ha u qaato, waa laga yaabaa meelahaas daldalool in laga fiirsho waa laga yaabaa, laakiin daldalooluna aanaan arkayn. waxaanu arkaynay shacabkayagii oo siyaasado kala gedisan ku jira inaan midayno, nabadoodana ku horseedno, nabadda aan u horseedno. biriisku siyaasadda inta badan shaqo kuma leh, waxa weeye wuxuu ka shaqeeyaa shacabka. salaan kadib waxaan si furfuran u soo dhawaynayaa saraakiisha lasoo magacaabay dhammaan, hadday tahay qayb guud, hadday tahay saldhigyo, hadday tahay ku-xigeenno, dhammaan waxaan leeyahay soo dhowaada. shaqada qaranku waa naga dhexaysaa dhammaantana, xilkuna waa meerto. waxay caddaynaysaa dowladnimo iyo qarannimo inay jirto xilku markuu meertadaya. annagu waan soo shaqaynay muddaa, qarankaan usoo shaqaynaynay. adinkana waxaan idin leenahay ku soo dhowaada. waxaa laydinka rabaa shaqadii qaranka meeshii aan keennay inaad ka wadaan. markaan aniga hadda runta sheego, maalintii galmudug la ii magacaabayay 10 sargaal ma joogin, ciidanka joogana 100 iyo wax yar buu ah. maantana saraakiisha galmudug baa 100 ku dhow, ciidankuna waa 1,000 iyo dhowr boqol. intaas tiil iyo tacab baan soo gelinay. marka taliyayaasha cusub waxaan ku soo dhawaynaynaa meeshii aan keennay inay kor uga sii wadaan oo ay kor u sii qaadaan. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhammaan saraakiishii ila soo shaqaysay heer kasta ha ku shaqeeyo, taliya xigeenka, hogaamada, taliya saldhigyada, saraakiil xigeenka, dableyda. runtii waxaad qabateen shaqo qaran oo aadnan u marsan oo daal badan oo aad soo gaarsiiseen heer qarannimo. marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay waad mahadsan tihiin, shaqo qaranna waad qabateen. annaga xilkaan wareejinay, laakiin waxaan nahay weli saraakiil ciidanka booliska soomaaliyeed ka mida. meel kalean tegi karnaa, berri baan soo noqon karnaa. intaasaan wada ogaanaynaa, ku wada qanacsanaanaynaa. waan joogaynaa, gobolkaan joogaynaa haddii ilaahayno. haddii qaranku meel kale noo diro waa tegaynaa, laakiin waxaan ku ballamaynaa dhammaantana naga dhexeeya shaqada qaranku sidii loo baahnaa inay u socoto. waxaan u shaqaynaynaa waa wada qarannimo, waxaan u shaqaynaynaa waa ilmahanaga. haddaadan adigu dhibtoon, ilmahaagu ma nasanayo. haddaa adigu tiraahid naso, ilmahaagu ma nasanayo. laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad adigu dhiftooto, ilmahaaguna nastaan. la gaaro amni, la gaaro horumar, la gaaro waxbarasho, la gaaro caafimaad. ilmahaagu uu ku naso adigu gurigaa samaysay. marka ayadaasaan ku ballamaynaa, ayadaasaan kulligana ku dardaarmayno. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa taliya xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed oo in badan lagu soo noqnoqday si ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug oo kor ugu kaco. runtiina wuu u kacay, wax badan baa iska bedelay intuu noo imaanahayay. waa ugu hambalyeynaya, waa ugu mahad celinayaa taliya. intaas markaan ka gudbo, waxaan u gudbayaa bulshada caasimadda oo ugu horeeyo guddoomiyaha. guddoomiyuhu runtii in badan buu nala shaqeeyey, hawshuu halkan wax ka soo gaarsiiyey. bulshaweynta caasimadda dhuusamareebna waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin,
waxaan laga shaqaynayo oo qarannimadu waa adinka dantiinni waa nasashadii ilmihiinna la shaqeeyo ciidanka ha lala shaqeeyo halkudhigga ciidanka booliska wuxuu yahay bulshadu waa booliska booliskuna waa bulshada iyo boolisku laba ma kala ahan waa inay wada shaqeeyaan muhiimadu taas ayaa dan lagu gaari karaa waxaan kusoo gabagabaynayaa mukhtaar taliyaha ciidanka danab oo hadda noo yimid waxaan leeyahay mukhtaar oo soo dhawow wax yar baa naga soo daahday xafladiibaa gabagaba noo ah runtii waxyaabaha aan gaarnay ciidan ahaan baa waxaa ka mid a ciidankii booliska iyo kii nabad sugidda iyo kii danab iyo kii militarigoo kale dhammaantana hal xarigoo isku xidhan baana waxaan rabaa marka inaan dhammaan aan mar kale aan idhaahdo anigu warka badin maayo insha allahu saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo ciidanka waa isku dambaynaynaa qorshayaasheennu insha allahu iyagoo qoraal aan qaybsan doonaa waxaa lagu talagelayaa in aanu fulino sharciga inaan fulino laga yeeli maayo qof boliisa xubin ciidanka boliiska ka mid ah xaquuq qaata inaysan shaqayn suurtagal ma noqonayso tilaabo adag gacan adagaan ku qabanaynaa haddii ilaahay yidhaah waxaan samayn doonaa ciqaabaad ciidanka gudihiisa qof walba wixii uu mato inuu helo qofkii wanaag sameeyana inaan abaalmarintiisa aan marino qofkii ka soo bixi waa in ciqaabteedu maraya haddii ilaahay yidhaah waxaan rajaynayaa annagoo midaysan annagoo tiim ah annagoo isku duuban dhammaan maamulkeenna degmada heer degmo ilaa heer gobol dhammaan annagoo isku duuban ciidamada saaxiibadeenna annagoo iskaashanayno inaan aadno hal jiha oo saxa inaan aadno waxaan idin rajaynayaa insha allahu iftiinka maanta ka baxay galmudug in insha allahu aanu noolayno aan garbo u noqono khayr badanna ummadeenna aanu annagii ummadeenna aan isdhex galno dhammaanteen waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahad celinayaa ugu horreyn dadka xafladdan ka soo shaqeeyey munaasabadda maanta sida quruxda badan u dhacaysa xilka ay kula kala wareegahayaan taliyaha cusub iyo ku-xigeenadiisa iyo taliyihii hore iyo ku-xigeenadiisa ay maanta xilka kula kala wareegahayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadka ka soo shaqeeyey xafladdan ugu horeeyo taliyihii hore ee saldhigga cabdullaahi madoobe waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka labaad taliyihii hore ciidanka boliiska galmudug iyo taliye ku-xigeenkiisii iyo saraakiishii la shaqaynahayay oo aan muddo aada maaragtay u adag ka soo shaqeeya meeshaan aniguna aan markhaati ka ahay xaaladdii ay ku shaqaynahayeen aan muddo la soo joogay aan ogaa shaqadooda siday u socotay soo gaarsiiyey meeshaan maanta quruxda badan ee dowladnimada leh ciidanku aada iyo aada u qurxoon yihiin saraakiishu u labisan yihiin oo kala dambeynta leh oo daruufaha adag oo aan ogeyn ku soo shaqeeyey muwaadinnimada leh maaragtay kala dambeynta leh soo gaarsiiyey meeshaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar koobaad iyo mar labaad waa u mahad celinaya anigoo ku hadlaya taliska boliiska soomaaliyeed afkooda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin haddaynan isxilqaamin daruufta adkayd aysan ku soo shaqayn waxyaalo badanoo soo maray aysan u adkaysan maanta meeshaan quruxda leh oo sharafta leh iyo shaqadan kala socota dhammaan galmudug meel kasta hadday tahay degmo hadday tahay saldhig hadday tahay tuulo ciidanka boliiska oo labisan baa jooga dhammaan waa mar ayaga ay marsiiye aniga waxaan is leeyahay haddayna si muwaadinnimoa oo saxilqaana aysan ku shaqayn maanta saan maysan ahaateen loomana yimaadan maaragtay ii sheeg arrintan sidaan u qurxun muwaadinimadooday ku soo gaarsiiyeen aqoontooday ku soo gaarsiiyeen didaalkooda iyo firfircoonadooday ku soo gaarsiiyeen
dhabar adeegooda ku soo gaarsiiyeen daruuf kasta oo jirta waxay go-aansadeen inay kaga gudbaan danta dalka ay u shaqeeyaan ayay tooda ka qaateen taas bay wax kasta ka hormarinayeen kuna iloobeen danahoodii iyo waxyaalahoodii gaarka ah ayagoo daruufo badan taagan yihiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin ayaga iyo saraakiishii la soo shaqaysay ee saldhigyada iyo degmada kala soo shaqeeyaba waa mahadsantihiin dhinaca kale waxaan soo dhaweynayaa maamulka cusub madaxda loo magacaabay galmudug cabdikariin gaashaanla sare cabdikariin iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyaasha qaybaha taliyaasha saldhigga ayagana waxaan leeyahay soo dhowaada waxaan aaminsanahay inaad maanta timaadeen meel aan laga naxayn oo ah meel lagu farxayo baa maanta timaadeen shaqo fiican oo la soo qabtay oo dowladnimada oo hortiina ka muuqata oo aan laynuu turjumayn baad u timaadeen maamul goboleedkii oo dowladi ka dhalatay oo dowladdii shaqaynaysa oo waddankii madaxweyne leeyahay oo system cusub leeyahay baad timaadeen raggeena ka horreeyey si wareeray ku shaqaynaya dhinac laga jiray dhamaysa aqoon dowlad shaqaynaysaana ma jirin laakiin adinka meel fiican baa la soo kowsateen aad iyo aad baana maaragtay waxaan leeyahay u nasiib badan tihiin waxaan rajaynayaa shaqada meeshii ay keeneen saraakiishii horeeto inay adinkana ka sii wadaan wax muuqday ayaga muujiyeen adinkana wax muuqday inaad muujisaan baa laynka rabaa haddii ilahaydno bedelka iyo saraakiisha iyona wax hadda cusub oo maanta ku ah maahan waa wax maaragtay qof walba uu meeshu joogo oo uu ku fadhiyo in bedel iyo wax walba imaanayaan kuwa cusub oo la keenana wuu ku imaanayaan kuwa hore joogana wuu ku imaanayaan waa shaqada nidaamka dawligaha sidaas ah maaha wax hadeer qof uu keenay oo uu wado ciidanka boliiska galmudug ee jooga waxaa laynka rabaa inaad la shaqaysaan iyo saraakiisha intiina joogtada maamulka cusub ee yimid amarkooda qaadataan walaha adeerkaabaa ahaa iyo ii soo oragii anaa geeli lahay shaqo kuma laha shaqo ku leeyahay mar haddaad fareejadas qaadatid mas-uuliyad baa ku saaran aan saarnayn dadka kaleeto oo shacabka ah mas-uuliyaddaas ku saaran waxaa laga rabaa cadaalad inaad dadka ku maamushid ilaahay baa lagula xisaabtamaya waxa aan hayno beri baa waxaa nalaka weydiinayaa qof kasta oo sargaalana sidaasoo kaleeto weeye ciidanka boliiska ee labisada fareejada wato xaquuqda ciidanka boliiska qaadanayo dadka bulshada ka soo dhex baxay oo u shaqaynayana sidaasoo kaleeto laydinka rabaa inaad maaragtay ii sheeg aada cadaaladda ilaalisaan meel kasta aad joogtaan ama askari ahow ama sargaal ahow waxyaalaha siyaasadda iyo qabyaaladana ka fogaataan cadowga dalkana inaad gacan bira ku qabataan baa laynka rabaa tuugada inaad ilaalisaan baa laynka rabaa madaxdiina inaad ka amar qaadataan baa laynka rabaa cid walba sidaasaa laga rabaa haddii ilahaydno dib baan haddii ilahaydno saraakiisha aan u wada hadli doonaa aniga intaas baan rabaa inaan warkay ku soo gaabiyo waxaan ku laabanayaa rabaa inaan idinkoo ralli ah aan halkaan ooga laabto waxaan shahaado sharaf guddoonsiinaynaa ka timid madaxda galmudug oo sare iyo deegaanka intaba mudnaantii intii uu shaqaynahayey sidii uu amniga u sugay bulshada uga dhex shaqeeyey maaragtay doorashooyinkii dhachayey uu ugu guulaystay amnigeeda ilaahay ugu guuleeyey gaashaanle cabdulaahi madoobe taliyihii hore saldhigga caasimadda dhuusamareeb cabdullaahi soo dhow bacda salaam maantay waa maalin weyn taariikhdu waa 25 bishii 2020 dowladnima dadka deeqda in ciidanka booliska
heer isteed iyo heer degmo halkan loogu dhigo xaflad xil wareejin ah caasimaddii maamul goboleedka galmudug aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay. waxaan marka hore u mahad celinaynaa dhammaan saraakiishii soo shaqaynaysay oo ugu horreeyey generaalka horteyda fadhiya generaalka qaybta haddana u diyaarsan inuu xilka wareejiyo isaga iyo ku-xigeenadiisu taliyihii saldhiggii booliska dhuusamareeb taliya cabdulaahi waxaan ku ammaanaynaa dhammaantood amnigii ay soo sugeen oo horumarkan iyo higsigan lagu gaaray. waxaan leenaha waa mahadsantihiin bulshadiinaad u shaqayseen una shaqay doontaan haddii ilaahay idmo. waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan saraakiisha lasoo magacaabay oo ugu horeeyo taliyaha qaybta booliska galmudug iyo ku-xigeenkiisa degmooyinkee lala soo magacaabay. si gaara waxaan u soo dhaweynayaa taliyaha saldhigga booliska dhuusamareeb mudane burhaan axmed rooble dhammaantiin waxaa idin leeyahay soo dhawaada. waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo taliyaheenii hore genaraal cabdicasiis iyo ku-xigeenkiisii genaraal xabeeb oo runtii aan waqti badan soo wada shaqaynay aanna filaayo inay si qurux badan maanta meeshaan ugu wareeji doonaan xilka. taliyaha cusub ahna macalinkaygii genaraal gaashaanla sare cabdikariin macali xuseen aad iyo aadaan taliya ugu faraxsanahay dhammaan in meeshaan maanta xilka lagula kala wareego saldhigyada iyo taliyaasha qaybaha guud iyo ku-xigeenadoodaba. waxaan leeyahay soo dhowaada ragga xilka la wareegaya. waxaan rabaa inaan meeshaan idhaahdo soo dhowaada la wareega shaqadiina sidii loogu talagalay uga soo baxa meeshii kuwii hore ay gaarsiiyeenna hore uga sii wada. waa idin soo dhaweynaynaa runtii dhammaantiin saldhigyadii aan gacanta ku haynay iyo ciidamadii aan haynay iyo meeshaan wax gaarsiinay inaad nagala wareegtaan horena usii wadaan. ayagoo saasaan haddana waxaan rabaa inaan laftigayguna dee ayagan ka mid ah kuwa haddana wax la wareegayo meeshii la ii dhiibay meesha ay marayso inaan hore uga sii kiciyo hore u sii wado. aad iyo aaday u dhib badan tahay qof walbana kama shaqayn karo qof marya ku dhaga kama shaqayn karo meel aad xasilisay ood wanaajisay oo aad markaad islahayd suudka aad markaan u qaadatid oo mukayfka aad dhex gashid aanta lagu soo booda waxaa lagu leeyahay waxaa lagaa tuurayaa baydhabo. marka waxaan leeyahay raggii soo shaqeeyey saraakiishii oo weliba taliya cabdulaahi uu soo maray marxalado aad u adag badan aad u adagoo meelo kala duwan qaylo uga soo yeerayso intaa nin dhallinyaro ahoo aad iyo aad u dulqaad badan oo ahaa shaqo wanaagsanna ka qabtay degmadan dhuusamareeb. waxaan leeyahay tali meesha aad tagtaa meel khayr qabta ha ahaato. taliyaha cusubna waxaan leenahay in taliyihii hore wanaaggii iyo lagu yaqiinay mid ka wanaagsan inaan la timaadaan rajaynaynaa. askarta taliyaha caasimadda nisa qooje dhammaan saraakiisha kale asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu. bacda salaam waxaan rabaa runtii maanta waa maalin qiimo leh waa maalin runtii dee ka duwan maalmaha kale special aniga iiga duwan. waxaan rabaa inaan saaxiibkeena kusoo dhaweeyo anigana layga soo watiyo insha allah haddii ilaha idmo. waa mahadsantihiin dhammaan saraakiisha kasoo qayb gashay oo ta ugu horeeya taliyaha ciidanka taliya-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed. mahad celin kadib waxaan rabaa halkan inaan u mahad celiyo bulshadii reer caasimadda dhuusamareeb oo runtii nala soo shaqaysay oo marxalad adag oo muxuu ahaa runtii aad u adkeed nala soo martay oo ugu horeeyo duqa caasimadda. waxaan rabaa inaan si gooni ugu mahad celiyo marxaladihii ay nala soo mareen iyo runtii siday noo taageereen oo garab istaageen intaan shaqaynaynay. waxaan rabaa si gooni inaan ugu mahad celiyo oo ugu mahad celiyay saraakiisha horteeda. waa mahadsantihiin bulshada caasimadda. waxaan rabaa inaan ii sheego taliye iyo taliyaal meeshaan caasimadda waxaan ka samaynay nabadeyn oo muxuu ahaa in runtii shaqo nabad ah oo muxuu ahaa amni nabad ah laga qabto. waa lagu guuleystay alxamdulilah. waxaan rabaa runtii inaan ku ammaano ciidankii iyo saraakiishii shaqaynaysay. qof keliya wax ma qaban karo. anigu waxaan qabanaya waxay ahaayeen waxa ila qabanayay saraakiisha dhammaan. marka waxaan rabaa inaan si gooni iyagana u mahad celiyo shaqadii adkeeda kasoo qabteen caasimadda oo ku saabsaneed qaabka nabadeynta iyo in muxuu ahaa si nabada loo falgalo oo loo howlgalo.
qodobka kale aan rabo inaan sheego waxa waaye xalinta khilaafaadka bulshada oo hadduu ahaa lahaa dhul iyo haddii ahaa lahayd diyooyin iyo haddii ahaa lahayd marxalad kasta oo subaxii waa ka duwan yahay meelaha businesska ama meelaha subaxii loo shaqo tago saldhigu waa ka duwan yahay weli waa ka dad badan yahay subaxii waxaa laga yaabaa in 200 300 qof kusoo shaqo tagto oo ay qof walba qofka kale uu haysto marxaladan laga rabaa inaad maaraysid marka waxaan rabaa inaan runtii qodobkaasna waa ku guuleysanay taliye waxaana sameynay muxuu ahaa in aan xalino khilaafaadkaas dhulalka ku saabsan ama muxuu ahaa diyooyinka ku saabsan inaan xalino qodobka kale muhiimka ah oo rabo inaan inta ka sheego waxaa kamid ah deegaanada ayagana barbalamiya ka jira sidaas oo kale ku saabsan dhul daageemeedka muxuu ahaa degayo iyagana la isku qabsado runtii ayagana waxaan ka qabanay inaan arrintaas xalino alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan rabaa doorashooyinka inaan soo dego taliya doorashooyinkii waa adkaa waad nala joogtay qayb badan oo runtii kamid ah waa ku guuleysanay alxamdulilah rabbil caalamiin si nabad ah anagoo kaashanayna hay-adaha amniga oo ugu horeeyo ciidanka nabad sugidda saaxiibkay qooje yaan ku guuleysanay inaan si amniga ku sugno oo halkan ciidanka fadhiya wujuudooda ujeedaan ay ka soo shaqeeyeen runtii taliya 8 bilood ku dhawaad inay laamiga taagnaayeen iyo saraakiisheenii ugu horeeyay saraayaasha ugu horeeyaan oo runtii muxuu ahaa nuu ayagana nuu garab taagnaa marxalad adag oo la soo maray ahayd alxamdulilah rabbil caalamiin si nabad ayaan uga soo gudubnay taliya waxaan kaloo ku guuleysanay inay si ciidanku isku mid ah u howlgalaan haddii ahaa lahaayeen booliis iyo haddii ahaa lahaayeen nabad sugid iyo haddii ahaa lahaayeen military isku xirka ciidamada kaalin aan ka qaadana ayadana runtii anaga kaalinteenii iyo ka booliis ahaan anagu waa buuxinay anagu nagu horeeya sareeyaashu kaalintaasna waa buuxinay runtii waan ku guuleysanay inaan ciidankii muxuu ahaa si isku mid ah ay u howlgalaan oo ay sameeyaan si isku mid ah u shaqeeyaan waxaan rabaa taliya soo celinta xiriirka bulshada iyo booliiska runtii waa ku guuleysanay ayadana ayadoo nagoo kaashanayna bulshada iyo booliisku waxaan ka dhignay mid taasna waxay sababtay inay wixii dhacay oo wanaag ahaa ilaahay noo qadaro oo noo dhacaan bulshada nagoo kaashanayna runtii waxay ahayd muxuu ahaa inaan bulshadii kaashano oo si isku mid ah u adeegno oo riboodka ay keenaan oo wax ka qof kasta oo degan caasimadda ama deegaanada ku xeeran wax kasta oo dhiba markay arkaan ay noo soo sheegaan mudane taliye waxaan kaloo kuu sheegayaa ciidanka booliiska waxaan gaarsiinay degmuutu caasimadda muxuu ahaa deegaanada hoostaga sida maroguriya godoon iyo ceel dheer oo kale waxaa ka shaqeeya booliis dadka shacabkan u shaqeeya si isku midana u howlgala wixii ku adkaadana usoo gudbiya saldhigga caasimadda iyagoo muxuu ahaa kaashanaya saraakiishooda sarsare iyo saraakiisha ka shaqeysa intaba waxaan rabaa iyagana inaan u mahad celiyo runtii aad ay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo taliye dardaaran aan la dardaarmayo ciidanka iyo muxuu ahaa saraakiishii la shaqeynaysay sida sharafta leh oo quruxda badan ay la shaqeysay waxaan rabaa inaan dhaho waa mahadsantihiin saraakiisha iyo askarta sharafta leh sidii sharafta laheed oo ila shaqeydeen oo qiimaha iyo wanaagga iyo qaayaha ay ku jireen iyo kala amar qaadashada waxaan rabaa inaan ula shaqeysaan saraakiisha cusub oo la keenay ood garab istaagtaan oo amnigu sidii uu ahaa iyo si lagu sii daro oo sii ahaado adinkoo aad u mahadsan waxaan rabaa inaan saraakiisha cusubna kula dardaarmo saraakiishana sharafta leh markaad imaataan meeshii shaqadu ay joogtay inaad kasii wadaan bulshadana usii adeegtaan oo ay noqoto muxuu ahaa qor isu dhiibkaas dowladnimada saas ay kusii wanaag badanto insha allah waan idinka rajeynaa haddii ilaahay idmo ciidanka qalabka sida ciidamada qalabka sida ee booliiska soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee kasoo qayb gala xafladda ee ka muuqdaan saaxiibadayda sida qooje oo ah saraakiisha nabad sugidda iyo maxamed shidane iyo rag lamida marti sharaf kale wariyayaasha dhammaan waxaan leeyahay hambalyo waan soo dhaweynayaa saaxiibkay sida sharafta loo qiimaha badan oo uu u sharaxay shaqadiisa iguna yeeray inuu igu wareejiyo shaqadii waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala meesha ou geeyay inaan kasii wadi doono waxaan rabaa inaan ka codsado shacabka caasimadda iyo deegaanada la xiriira shaqadana loo igmaday inay nagula shaqeeyaan haddii alla yidhaahdo annagoo noqon doona nabadoonada sida booliiskaba ou yahay deegaanka sharcigana taabogeli doona iyo dowladnimada haddii ilaah yidhaahdo waxaan diyaar u nahay
ciddii dhib wadana inaan ka qabanno ummadda, dadka wanaagsanna inaan la tashanno si aan shaqo wacan u wada qabanno haddii alla yidhaahdo. intaas kadib waxaan rabaa saaxiibkay cabdulaahi taliyihii hore ee caasimadda inaan mahadcelin gaara u sameeyo. awal annagoo aan saaxiibo hore u ahayn, saaxiibtinimadayna hore ka sokana shaqada hadda aan ku kala wareegayno. taliya cabdulaahi waa mahadsan tahay, waana kaa guddoomay. mudana taliye, waxaa maanta sharafii ah inaan taaganahay marxalad aan ku faani karo oo maanta muxuu ahay aan ku wareejin karno saaxiibadayada cusub ee jawi nabadeed ah ee maanta halka kan aan soo gaarsiinay, inaan ku faani karo maanta farxad bay ii tahay. farxadda labaad waxaa ii ah in maanta jawi nabadeed ee caasimadda tani aan soo gaarsiinay, ee aan diidnay in dagaal ka dhaco in badan, ee aan diidnay in iska horanaad ka yimaado, ee aan ku soo sinay saaxiibadayada cusubna farxad bay ii tahay. waxaan rabaa si qaas ah inaan ugu mahadceliyo taliyaha cusub ee saaxiibkay cabdikariim iyo taliyihiisa ku-xigeenkiisa maxamed nuur oo labadaba runtii aan saaxiibanahay, in badanna aan soo wada shaqaynay. maanta waa ku faraxsanahay inaan halkan aan xilka ugu wareejino, waa ku faraxsanahay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii taliya qaybyada, taliyayaasha saldhigyada, guddoomiyaasha degmada, bulshooyinka reer galmudug ee caasimadda, ciidanka galmudug ee boliiska dhammaan sidii sharafta badnayd jawigaan maanta u soo gaarsiisay hawshaan ee sida sharaftana noola shaqaynaysay ee aan madaxda u ahayn. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo runtii saraakiisha ee muxuu ahayey hadda halka fadhida ee howlaha gaarka seember u taagnaa iyo amniga, oo ay ugu dambeeyeen kuwa hadda ka yimid meel la yidhahdo shabeel carab oo dadka shacabka kale dhex taagnaa ay ka dhasheen. ayagana inaan si gaara ugu mahadceliyo oo uu ka mid yahay cabdi kadowo iyo cali dheere iyo ragaalkan fadhiya, inaan u mahadceliyo. waxaan kuu sheegayaa taliye iyo taliyayaalba, waxaan ku dhex jirnay arrin nabadayn, waxaan ku dhex jirnay arrin muxuu ahay xasaasi ah, waxaan ku dhex jirnay arrin duruufo adag ah. ilaahay waxaan uga shukriyeynaa dhammaan intaas waxaan ku soo moodnay si sharaf leh aan ku soo moodnay ee nabadgelyo iyo xushmad boowan. ilaah baa mahadda iskale. waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo labadayda saaxiib xilka maanta ku wareegaysa. waxaan u ballan qaadayaa, waxaa la yidhi in xallay madasha ma tago, waxa carada maraysa xabiib wuxuu ka xanaaqsan yahay xilka laga qaaday been waaye, been weeye, kama xanaaqsani. waa ku soo dhowaynayaa, waa saaxiibaday. run markaan sheegan cabdikariim in badan baan riixayay, asna waa ogyahay taliyaha hadda ag fadhiya ee taliyaha biliiska ku-xigeenka soomaaliyeed. in badan baan ribood ugu tegey in cabdikariim halkaan la keeno. cabdikariim markii halkaan la keenayana inaana anigu markaas cabdikariim ana ka hoosaynayn, waan ogaaday, waan malaynaya in aniga lay bedelayo, laakiin inuu meeshaan wax ka dhigo ayaa ujeedkaygu ahaa. ujeedkaygu taasuu ahaa. cabdikariim waxaan kuu ballan qaadayaa adiga maxamed nuurba, ilamaa inta xilkaan aad ka wareegaysaan haddaan idinla joogo inaan idin garab taaganahay, waxaa laygu xantaa waa oday soo jireenoo hande waddanka aad u yaqaana oo deegaankan in badan ka soo shaqaynayay, mudug iyo galgaduudba dhammaan intaa waa ka soo shaqeeyey. dadka shacabkaana aad baan isku naqaanaa. intii aan idin dheerahay iyo intii ila midaba waa idinku kaalmaynayaa, waan idinla shaqaynayaa. intaa kadib waxaan rabaa dhammaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba bulshada reer galmudug ee caasimadan degan ee nabadaa nala soo hagaajinaysay, ee nala daadihinaysay, oo ugu horeeya guddoomiyaha caasimadda iyo ku-xigeenkiisa oo hadda idhidka iga fadhiya, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. in badan baan wada hadalnay, in badan baan shirnay. waxaan intaas aan xeelinaynay inaan meeshaan dagaal ka dhicin, inaan dhibaata ka dhicin. waxaa la yidhi reernimada ma loo talin waayo, reernimada looma talin waayo, laakiin meel khasaare ka dhacay lagama talin karo. maanta waxaan joognaa meel laga talin karo oo ninkii shaqaynaya ka shaqayn karo. marxaladahaan soo maray xoogaal baad ka tihiin, wax badan baad og tihiin.
ayagoo mudaharaadyaal isdaba socdaan oo laba mudaharaad isdaba socoto midna diiday midna yeelay ku jirto ayaan waxaan gaaray labadaba inaan qancinno oo jawi nabadeed ku qancinno oo aan ku soo celinno inay wadda caasimadda tan aan dhibaata ka dhicin kolley nambasi ha u qaato waa laga yaabaa meelahaas daldalool in laga fiirsho waa laga yaabaa laakiin daldalooluma aanaan arkayn waxaanu arkaynay shacabkayagii oo siyaasado kala gedisan ku jira inaan midayno nabadoodana ku horseedno nabadda aan u horseedno bariisku siyaasadda inta badan shaqo kuma leh waxa weeye wuxuu ka shaqeeyaa shacabka salaan kadib waxaan si furfuran u soo dhawaynayaa saraakiisha lasoo magacaabay dhammaan hadday tahay qayb guud hadday tahay saldhigyo hadday tahay ku-xigeenno dhammaan waxaan leeyahay soo dhowaada shaqada qaranku waa naga dhexaysaa dhammaantana xilkuna waa meerto waxay caddaynaysaa dowladnimo iyo qarannimo inay jirto xilku markau meertadaya annagu waan soo shaqaynay in muddaa qarankaan usoo shaqaynaynay adinkana waxaan idin leenahay ku soo dhowaada waxaa laydinka rabaa shaqadii qaranka meeshii aan keennay inaad ka wadaan markaan aniga hadda runta sheego maalintii galmudug la ii magacaabayay 10 sargaalna joogin ciidanka joogana 100 iyo wax yar buu ah maantana saraakiisha galmudug baa 100 ku dhow ciidankuna waa 1,000 iyo dhowr boqol intaas tiil iyo tacab baan soo gelinay marka taliyaasha cusub waxaan ku soo dhawaynaynaa meeshii aan keennay inay kor uga sii wadaan oo ay kor u sii qaadaan waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhammaan saraakiishii ila soo shaqaysay heer kastaha ku shaqeeyo taliya xigeenka hogaamada taliya saldhigyada saraakiil xigeenka dableyda runtii waxaad qabateen shaqo qaran oo aadnan u nasan oo daal badan oo aad soo gaarsiiseen heer qarannimo marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay waad mahadsan tihiin shaqo qaranna waad qabateen annaga xilkaan wareejinay laakiin waxaan nahay weli saraakiil ciidanka booliska soomaaliyeed ka mida meel kalean tegi karnaa berri baan soo noqon karnaa intaasaan wada ogaanaynaa ku wada qanacsanaanaynaa waan joogaynaa gobolkaan joogaynaa haddii ilaahayno haddii qaranku meel kale noo diro waa tegaynaa laakiin waxaan ku ballamaynaa dhammaantana naga dhexeeya shaqada qaranku sidii loo baahnaa inay u socoto waxaan u shaqaynaynaa waa wada qarannin waxaan u shaqaynaynaa waa ilmahanaga haddaadan adigu dhibtoon ilmahaagu ma nasanayo haddaa adigu tiraahd naso ilmahaagu ma nasanayo laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad adigu dhiftooto ilmahaaguna nastaan la gaaro amni la gaaro horumar la gaaro waxbarasho la gaaro caafimaad ilmahaagu uu ku nasto adigu gurigaa samaysay marka ayadaasaan ku ballamaynaa ayadaasaan kulligana ku dardaarmaynaa waxaan si gaara ugu mahad celinayaa taliya xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed oo in badan lagu soo noqnoqday si ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug oo kor ugu kaco runtiina wuu u kacay wax badan baa iska bedelay intuu noo imaanahayay waa ugu hambalyeynaya waa ugu mahad celinayaa taliya intaas markaan ka gudbo waxaan u gudbayaa bulshada caasimadda oo ugu horeeyo guddoomiyuhu runtii in badan buu nala shaqeeyey hawshuu halkan wax ka soo gaarsiiyey bulshaweynta caasimadda dhuusamareebna waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin waxaan laga shaqaynayo oo qarannimadu waa adinka dantiinnii waa nasashadii ilmihiinna la shaqeeya ciidanka ha lala shaqeeyo halku-dhigga ciidanka booliska wuxuu yahay bulshadu waa booliska
booliskuna waa bulshada iyo boolisku laba ma kala ahan waa inay wada shaqeeyaan muhiimadu taas ayaa dan lagu gaari karaa waxaan kusoo gabagabaynayaa mukhtaar taliyaha ciidanka danab oo hadda noo yimid waxaan leeyahay mukhtaar oo soo dhawow wax yar baa naga soo daahday xafladiibaa gabagaba noo ah runtii waxyaabaha aan gaarnay ciidan ahaan baa waxaa ka mid a ciidankii booliska iyo kii nabad sugidda iyo kii danab iyo kii militarigoo kale dhammaantana hal xarigoo isku xidhan baana waxaan rabaa marka inaan dhammaan aan mar kale aan idhaahdo anigu warka badin maayo insha allahu saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo ciidanka waa isku dambaynaynaa qorshayaasheennu insha allahu iyagoo qoraal aan qaybsan doonaa waxaa lagu talagelayaa in aanu fulino sharciga inaan fulino laga yeeli maayo qof boliisa xubin ciidanka boliiska ka mid ah xaquuq qaata inaysan shaqayn suurtagal ma noqonayso tilaabo adag gacan adagaan ku qabanaynaa haddii ilaah yidhaah waxaan samayn doonaa ciqaabaad ciidanka gudihiisa qof walba wixii uu mato inuu helo qofkii wanaag sameeyana inaan abaalmarintiisa aan marino qofkii ka soo bixi waayana ciqaabteedu maraya haddii ilaah yidhaah waxaan rajaynayaa annagoo midaysan annagoo tiim ah annagoo isku duuban dhammaan maamulkeenna degmada heer degmo ilaa heer gobol dhammaan annagoo isku duuban ciidamada saaxiibadeenna annagoo iskaashanayno inaan aadno hal jiha oo sax ah inaan aadno waxaan idiin rajaynayaa insha allahu iftiinka maanta ka baxay galmudug in insha allahu aanu noolayno aan garbo u noqono khayr badanna ummadeenna aanu annagii ummadeenna aan isdhexgalno dhammaanteen waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahad celinayaa ugu horreyn dadka xafladdan ka soo shaqeeyey munaasabadda maanta sida quruxda badan u dhacaysa xilka ay kula kala wareegahayaan taliyaha cusub iyo ku-xigeenadiisa iyo taliyihii hore iyo ku-xigeenadiisa ay maanta xilka kula kala wareegahayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadka ka soo shaqeeyey xafladdan ugu horeeyo taliyihii hore ee saldhigga cabdullaahi madoobe waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka labaad taliyihii hore ciidanka biliiska galmudug iyo taliya ku-xigeenkiisii iyo saraakiishii la shaqaynahayay oo aan muddo aada maaragtay u adag ka soo shaqeeya meeshaan aniguna aan markhaati ka ahay xaaladdii ay ku shaqaynahayeen aan muddo la soo joogay aan ogaa shaqadooda sida u socotay soo gaarsiiyey meeshaan maanta quruxda badan ee dowladnimada leh ciidanku aad iyo aad u qurxoon yihiin saraakiishu u labisan yihiin oo kala dambeynta leh oo daruufaha adag oo aan ogeyn ku soo shaqeeyey muwaadinnimada leh maaragtay kala dambeynta leh soo gaarsiiyey meeshaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar koobaad iyo mar labaad waa u mahad celinaya anigoo ku hadlaya taliska biliiska soomaaliyeed afkooda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin haddaynan isxilqaamin daruufta adkayd aysan ku soo shaqayn waxyaalo badanoo soo maray aysan u adkaysan maanta meeshaan quruxda leh oo sharafta leh iyo shaqadan kala socota dhammaan galmudug meel kasta hadday tahay degmo hadday tahay saldhig hadday tahay tuulo ciidanka biliiska oo labisan baa jooga dhammaan waa mar ayaga ay marsiiye aniga waxaan is leeyahay haddayna si muwaadinnimoa oo isxilqaana aysan ku shaqayn maanta saan maysan ahaateen loomana yimaadan maaragtay ii sheeg arrintan sidaan u qurxun muwaadinimadooda ku soo gaarsiiyeen aqoontooday ku soo gaarsiiyeen didaalkooda iyo firfircoonadooday ku soo gaarsiiyeen dhabar adeegooday ku soo gaarsiiyeen daruuf kasta oo jirta waxay go-aansadeen inay kaga gudbaan danta dalka ay u shaqeeyaan ayay tooda ka qaateen taas bay wax kasta ka hormarinayeen
kuna ilooban danahoodii iyo waxyaalahoodii gaarka ah ayagoo dalufo badan taagan yihiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin ayaga iyo saraakiishii la soo shaqaysay ee saldhigyada iyo degmada kala soo shaqeeyaba waa mahadsantihiin dhinaca kale waxaan soo dhaweynayaa maamulka cusub madaxda loo magacaabay galmudug cabdikariin gaashaanla sare cabdikariin iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyaasha qaybaha taliyaasha saldhigga ayagana waxaan leeyahay soo dhowaada waxaan aaminsanahay inaad maanta timaadeen meel aan laga naxayn oo ah meel lagu farxayo baa maanta timaadeen shaqo fiican oo la soo qabtay oo dowladnimada oo hortiina ka muuqata oo aan laynuu turjumayn baad u timaadeen maamul goboleedkii oo dowlad ka dhalatay oo dowladdii shaqaynaysa oo waddankii madaxweyne leeyahay oo system cusub leeyahay baad timaadeen raggeena ka horreeyey si wareer ah ku shaqaynaya dhinac laga jiray dhamaysa aqoon dowlad shaqaynaysaana ma jirin laakiin adinka meel fiican baa la soo kowsateen aad iyo aad baana maaragtay waxaan leeyahay u nasiib badan tihiin waxaan rajaynayaa shaqada meeshii ay keeneen saraakiishii horeeto inay adinkana ka sii wadaan wax muuqday ayaga muujiyeen adinkana wax muuqday inaad muujisaan baa laynka rabaa haddii ilahaydno bedelka iyo saraakiisha iyona wax hadda cusub oo maanta ku ah maahan waa wax maaragtay qof walba uu meeshu joogo oo uu ku fadhiyo in bedel iyo wax walba imaanayaan kuwa cusub oo la keenana wuu ku imaanayaan kuwa hore joogana wuu ku imaanayaan waa shaqada nidaamka dawligaha sidaas ah maaha wax hadeer qof uu keenay oo uu wado ciidanka boliiska galmudug ee jooga waxaa laynka rabaa inaad la shaqaysaan iyo saraakiisha intiina joogtada maamulka cusub ee yimid amarkooda qaadataan walaha adeerkaabaa ahay iyo iisoo orad iyo anaa geeli lahay shaqo kuma laha shaqo ku leeyahay mar haddaa fareejadas qaadatid mas-uuliyad baa ku saaran aan saarnayn dadka kaleeto oo shacabka ah mas-uuliyaddaas ku saaran waxaa laga rabaa cadaalad inaad dadka ku maamushid ilaahay baa nagula xisaabtamaya waxa aan hayno berri baa waxaa nalaka weydiinayaa qof kasta oo sargaalana sidaasoo kaleeto weeye ciidanka boliiska ee labisada fareejada wato xaquuqda ciidanka boliiska qaadanayo dadka bulshada ka soo dhex baxay oo u shaqaynayana sidaasoo kaleeto laydinka rabaa inaad maaragtay ii sheeg aad cadaaladda ilaalisaan meel kasta aad joogtaan ama askari ahow ama sargaal ahow waxyaalaha siyaasadda iyo qabyaaladana ka fogaataan cadowga dalkana inaad gacan bira ku qabataan baa laynka rabaa tuugada inaad ilaalisaan baa laynka rabaa madaxdiina inaad ka amar qaadataan baa laynka rabaa cid walba sidaasaa laga rabaa haddii ilahaydno dib baan haddii ilahaydno saraakiisha aan u wada hadli doonaa aniga intaas baan rabaa inaan markay ku soo gaabiyo waxaan ku laabanayaa rabaa inaan idinkoo ralli ah aan halkaan ooga laabto waxaan shahaado sharaf guddoonsiinaynaa ka timid madaxda galmudug oo sare iyo deegaanka intaba mudnaantii intii uu shaqaynahayey sidii uu amniga u sugay bulshada ooga dhex shaqeeyey maaragtay doorashooyinkii dhacahayey uu ugu guulaystay amnigeeda ilaahay ugu guuleeyey gaashaanle cabdulaahi madoobe taliyihii hore saldhigga caasimadda dhuusamareeb cabdullaahi soo dhow